haweeneyda Coley Edmond oo ku nool jasiiradda Long Island oo ka tirsan gobolka New York ee dalka Mareykanku waxay muddo 4 saacadood oo toos baarisay oo soo qufisay haanta xashiishka iyadoo ka baaraysa 2 kaatun ama fargashi oo ay lahayd kuwaas oo ay u hayso ahmiyad gaar ah oo jacaylka lamaanaheeda la xidhiidha kadib markii ay fargashiyada si khaldan ugu riday salada lagu ururiyo xashiishka madbaxa ama kijada gabadhani waxay sheegtay inay masaafo dheer daba socotay gaariga xashiishlaha ah ee xaafadooda si ay u gaadho goobta uu geeyo xashiishka iyadoo ku qanacsan oo aan ka walaacsanayn inay meel kala dhigtay salada qashinka mooyaane waxayna bilowday inay xashiishka ahaanta ku jiro soo qufaan iyada iyo odageedu ilaa ay ugu dambeyntii soo heleen labadii fargashi kadibna ay dib ugu soo noqdeen gurigoodii kadib muddo 4 saacadood ah oo shaqo adag ay soo qabteen Mrs. Edmond waxay sheegtay in qiimaha labada fargashi aanu ahayn mid aad u badan laakiin ay iyada uga dhigan yihiin astaanta qiso jacayl oo soo socotay muddo 20 sannadood taasoo kala dhaxaysay ninkeeda oo ilaa maanta dhinac taagan sida ay hadalkeeda u dhigtay